gudida dhaqaalaha ee golaha wasiirada Soomaaliland oo gaaraya ilaa 9 wasiir ayaa maanta socdaal ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera waxaana kulamo la qaateen warbaahinta dibadda ka ahayd maamulka gobolka Saaxil mas'uuliyiinta degmada Berbera saraakiisha ciidamada kala duwan ee ka howlgala gobolka Saaxil markii uu soo idlaaday shirkaasi waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxaanu ka warbixiyay ujeedada socdaalkooda salka ku hayo waxaan halkan u imanay maanta annagu waa gudigii dhaqaalaha ee golaha wasiirada si aan u qiimayno kaabayaasha dhaqaalaha ee dawladdu ay ku leedahay gobolka Saaxil magaalada Berbera taasoo lanoo soo igmaday oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay noo soo igmadeen inaan si fiican u soo hubino hawlaha xaalkay ku sugan yihiin mudada xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ay la wareegtay tirada dalka waa markii koowaad ee tirada wasiirada oo gaaraysa ilaa 9 wasiir ay soo gaaraan xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera waa Cabdirashiid Mubarak Cabdi Cabdirashiid Suul telefishinka caalamiga Soomaali Cable magaalada Berbera.